السلام عليكم guys magacaygu waxa waaye Nasiib Cabdi Axmed maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin aniga ahaan ila muuqato inay tahay arrin muhiim ah arrintaas waxay ku saabsan tahay waalidka Soomaaliyeed intaan ka hadlin marka hore waxaan rabaa inaan ka weydiisto haddii aad u aragtaan inay arrin qaldan aan ka hadlayo si kastaba arrintan waxaan maanta doorbidey inaan ka hadlo arrintaas oo ah waalidka Soomaaliyeed khaasatan hooyooyinka Soomaaliyeed hooyooyin badan markii ay nimanka kala tagaan amaba badanaa kala taga kaliya maaha markii ay nimanka ilmaha ku cileeyaan ama mas'uuliyadii aabaha oo aabihii gabo oo hooyadii keligeed ay ilmahaas ay ku dhiso horta waa xanuun hooyada culays badanaa soo koraya stressa soo koraya hawl badanaa soo koraysa balse hooyooyinka qaarkood xanaaqa dartiis waxay sameeyaan ilmihii markii ay noqoto xaggii aabaha wixii ay uga sheegaanba waxay noqotaa wax xun aabihii xumaantiisii oo dhan iyo wax kaloo ay ku daraanbo waayo hooyadii waxaa ka keenaya xanaaqii aabihii booskiisii muu qaadinin mas-uuliyadiisii wuu gabay hooyadii keligeed baa ilmihii ku rafaadsan saas oo tahay qofkan qalbiga ilmaha wuxuu ku abuurayaa nacayb uusan ogeyn ilmihii markii wax walba oo dhankii aabihiis looga sheego ama faamilkii aabihiis looga sheego qalbigooda waxaa ku abuurmaya cuqdad iyo nacayb noloshooda dambe waxay u yeelanaysaa saameyntaas waxaa ka mid ah ummad Soomaaliya nahay ummad muslim nahay ma kala maarano aabihii haddii uu ku xumeeyo haddii kalaba diinteena islaamku waxay ku leedahay faamilkaaga ha goynin ilmihii wuxuu sameynayaa inuu aabihii gooyo waxaa laga yaabaa aabihii inuu khaladkiisa gadaal ka garto balse ilmihii nacaybkii ku abuurnaa dartiis waxaa laga yaabaa inuu aabihii u cafinin waxaa kaloo laga yaabaa berito aabihii inuu xanuunsado ilmihii waxaa laga yaabaa daryeelku aabihiis uu siin lahaa inuu siinin oo dhaho shalay baa anuu yarba iga jiray waa run balse muslim baan nahay diinteena nama farayso taas midoo kale waxaa laga yaabaa aabihii inuu faamil kala yeeshay ilmihii walaalahoodii kale waxaa laga yaabaa cuqdad inay u qaadaan ay dhahaan aabahayba ayagu naga jeclaaday maxaa ula xiriireynaa labadii faamili iyo caruurtii waxaa laga yaabaa sidii ay walaalo u noqon lahaayeen inaysan u noqonin ilmihii midda kale qalbigiisa nacaybkaas wuxuu u fududanayaa waxyaalo kale xataa oo nolosha inuu nacayb u qaado waayo markuu u yaraaba qalbigiisa waxaa ku kortay cuqdad midda kale waxaa laga yaabaa ilmahaas xataa markuu yaryahay aabihii muuse arag wuxuu arkayaa awlaad kale oo aabahood la ciyaaraysa xumaantii adiga uga sheegtay darteed waxaa laga yaabaa ilmahaas inuuba waayo wuxuu arkay baahidii uu u baahnaa aabaha ilmaha kale markay aabahood la ciyaarayaan jacaylkii wuxuu arkay inuu aabo u baahan yahay haddana qalbigiisii waxaa ku jira nacaybkiisa wuu sii siyaadayaa baahidii uu qabay iyo hadalladaadii darteed aabaha si kasta u xun yahay u ogolow inuu ilmihiisa arko u ogolow inaa wax dhanka fiican uga sheegtid waxaa jira aabayaal 100% fiican balse duruufaha jira dartood aabayaal waxaa jira in laga yaabo inay balwo darteed aynan xun ka dhigtay balse sida kale ahaan uu yahay nin aada u wanaagsan ilmaha waxaa fiican marka ay yaryar yihiin qalbigooda naxariista jacayl lagu abuuro si kastuu aabaha ama hooyada ilmaha uga tagaan markasta waa waalidku weliba Soomaalida ragga Soomaalida waxayba dhahaan dhib ma laha berito waa ilmahayga ay imaanayaan way ku qaldan yihiin ayagana waxaa la rabaa inay booskooda qaataan balse adiga ahaan maanta haddii ay ku dhacday haddii aad tahay aabe hooyadii ka tagtay ama haddii aad tahay hooyo aabihii ka tagay ama ay kala tageen lamaanahaagii hore ilmahaaga markasta xumaantiisa ha uga sheekeynin isku day dhanka wanaagsan inaad uga sheekaysid isku day inaad marmarsiyo u samaysid oo dhahdo aabaha wuu fiicnaa balse balwo darteed baa saa gashay aabaha saan u ahaa balse saas baa gashay waa hubaa duruufo darteed inay jiraan mar labaad nimanka marmarsiyo ma sameynayo nin aad ilmihiisa inuu ka tago ku khaldan yahay balse hooyo ahaan isku day ilmaha qalbigiisa inaad naxariis iyo jacayl aad ku karisid waa mahadsantihiin